aniga kumana qofood kurbey kafeyday kalaman aniga kumana qofood kurbey kafeyday kalaman xafaayada konfi baby iyo caanaha konfi laag sidaana ilmuhu uga qosliyaan garowe guurtidii tagtay go'aan misla goob dhigteen garowe guurtidii tagtay go'aan wal misla goob dhigteen haye gudaana gada gordu waysana guumo aan yar iyo gariin hore geed isa saartana warmay waxaan maqli jiray geelna waa galgashaa ragna waa gedistaa garowe shirki odayaashu ku galeen weli garkaa la isku jiraa baa leeyahay waxa kaloo la yiri wax gadgadi waxa kula gadoomeene fooshan dheer tolo dirqi nirig ku dhali doonta anigu rag waxaan u aqaanaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Farmaajo isla sawiran ninkii tusa warano rag waxaan u aqaanaa Farmaajo Muuse Biixi ninkii sugeeya ariyada hore waxa loo yiri sagiira la maadiisa gees ninkii sugeeya waa gardha wargarow ilaa xalay ilaa maanta wadaada la socday madaxweyne Farmaajo iyo Sayid Sheekh Axmed Madoobe waa la isu keenay waa la yiri asayee inta kale xalkooda wuu isu dhow yahay la yiri warnamiya may leeray waran lanka kiisuri lan laayigiisa saafay oo leere warnamiya waxaan la yaabana madaxweyne Farmaajo iyo Sayid Axmed Madoobe waxay isku diidan yihiin isku afgaran la yihiin yaa laho noo sheegi kara waxay yihiin warooy Soomaali baale ariyada Axmed Madoobe Jubbaland inuu kaligiis qaato rabaaho meel la fadhiis warnamiya Saal Ali Jallo waa yiri yaa wuxuu miray projectiyihiin Landera male namiya may leega jiray ajiiso abtay soo iyay ta ku bilaawa leega jiri madiisan latin al Sayid Axmed Madoobe iyo madaxweyne kiidan Farmaajo heshii waan islatin odayii haaf hay ku warantaana mise wiliba tiyateegin wallahi aan la yeelayn oo billahi la yeelayn maana warna soo dhadhoobahaya wallahi aan laga yeelayn oo billahi laga yeelayn waligiisa ba taagnaada meeshiisa waliba foodkan iska daa madaxweyne xaaf waa suldaan waana xaaji waana nabadoon ayaantan culumadii buu la joogo tusbax weyn oo kunu qaatay dawladnimo iyo nidaam waa qofka ugu horeeya Soomaaliya inuu diido iska badaay tubto tooba shantanmiya dagaal kama daro waxaan dagaalahayn daawo lagu waa ruuxan shantaada ka elin sharika ma eliyo waxa iska daashay rag ka bateen maaha war doctor Xabiib wuxuu yiri Axmed Madoobe hadda liisa la yahay isbitaalkii dadka dhimirka la ku daaweynay waa la burburiyay marka soo magaalada ka maqan yana saasa loo burburiyo waana markii afraad marka hadda liisa la yahay ciidankiisa iga cishada waxaan ku talin lahaa doctor Xabiib eexda iska daayo dadka waalana meesha laga jabiyo oo daweynayay iyo kuwa ka jabiyaba waa waalayn hawada daweey muxuu qaar weedaynaya wariyo doctor Xabiib madaxdiina siyaasata hadda weeyo ila waa waalayn armaal waxa ku warama يا مصبح يا فيصل علي ورابع يكون داو مرة مية ورنمي وحال يري صدق دي قفة صومالية مد كمدها أولا مركز دكتور حبيب صومالي دو دوي كرا دكتور حبيب سي لفتي ساد داو وباهن ورنمي وقروا وسيدي ورياش وعقوزو تبنيان وعقوب الجيران إلى شلا waxay noo sheegayaan madaxdu waa isla qadeeyeen waa isla quraacdeen waa isla casheeyeen waa isla qosleen waa is salaameen war waxaas weligeed Soomaalidu wax loo isla jirtay isla saabi jirtay wixii la isku haystamiyaa lagu kala baxay wariyaashu waxa jiray ku sheegaan wax kale ma sameeyaan bulshada wariyaa wax bara bulshadiisa bedela baaqiisuna waa u buug bartuu geeyaa barina wuxuu beeraa u baxa wuxuu biyaa burbura wuxuu baanshaa bogsada balaayaysa waxay ka timid haday been sheegayaan sharuur kala boobayaan baxaa doon lagu eriyo waran jirin baahiyaan war hadaan sharuur jirin Axmed Waafi Mahdi Mutawakkil inta arkay lama ekaadeen ogaayay waaweyn lamadaas nin xayuuneen waxaan Soomaali waxaan dhiinaa ummadii dawiya malab iyo suniya deebaaq kala dooran weynaay dabcan waa abaalka in lagu daraada inuu kare aamina ilaahay naga yeersiiyay Allah aqbalo war ninkii Ingiriiska ah ee xabsiga dhexe loo gudbiyay Daa'isha
markii maysaa la yidhi daacish ciyaar sakiin ayaan maqli jiray waagaan yaraa marka niman yahow daacish ma ciyaar sakiin ay ka mid ahayd ariyaa xabsiga daacish daalibaan shabaab askari indishibilenaatiya daroogeyste dhaqan celina waxaasoo dhanoo meel la iskula xiraa la yidhi muga waxaan dhihi lahay ma daalibaan yaa daacisha dad kale lugu soo daara anugu waxaan dhihi lahay shabaab iyo daacish mashruucyo waaweyn ay noqdeene xabsiyo gaaraa loo sameey haddii kale dadka lala xiray tashkiilinaya warana warkaa waxaa iiga daran waxaan maqlay daalibaan iyo maraykanku inay heshiis gaadeen oo qadar ku shireen marka daalibaan hadday maraykan la heshiiso cid dambo ay la dirirto male horta mabaadi'deedina waa duntay aryaa waa wareerta awal maa daalibaan maraykan la dirirayeen muslimkay la diriraayeene inuu cadowgu soo tababaro taakuleynahayey oo tawxiidka alliya islaam tuuta uga yeelay taraam iyo wataa daalimaan tala wadaageen awalba tuug iyo tuukalkaalay ahaayeen taraam iyo wax lamid ahaana watay ee shibnaga dhaha warnimiyow baydhow jinaay doorashooyinka ka dhiyaan walla yaabanya geeka afar bafood yaa hilibaan hata ka hor dhimidi kursigeen tartamaayeen yaa ma inay dhintaan iyo kula u tartamayaan haddaan war dhimasho madigu anaga kursigan tartamaayay dhagansoyniyow reer maylale afarta musharax hal musharaxa gali hoolka doorashada sadii kala heertay musqula korlankiiri gudiga doorashada ma areena hal musharaxa kooy afar musharax longoday kiyalood ka guuleysiyeen reer mayleega jiray gaal gohowjay kooy gurbika iride wadheega jari waraa waa gar daran tahay horaa loo yiri ninkii saxda siciid dhalay nimanka hadday barnaadeen ayaa lagu eedayaa waraagaa gar daran nimanka goobta doorashada ma imaan kartaan baa la yidhi albaabadana waa laga xirtay sidaan xala ku riyooday taasina kaa soo jeed cad ku aragna inay maharoogsan waayeen waraadeena somalilan doorashadiinnan iyo malmaluuqiinnan beri horey ka gudubtay iminkana imaaraadku wuxuu noo ballan qaaday inuu noo tababarayo ciidan ka badan 5,000 carruurtana caanuu loo siinaya markaa kuudhuu leeyahy maalin dhow baa waynu qabsan doonnaa war maysaan daacishta soomaaliya joogta waxay dalbadeen dhakhaatiir ajaaniba si tuulo kasta ay uga helaan dhakhtar daaweeye waraagaa daacish waxaaba iga daran dhallinyaradan bajaajta ku shaqaysata cidda maalin kasta dishaay waayo aryaa wadka horaa galeexaad sheegi laheed weedyahi garow laakiin walsheena lamdiloohay war mala ayagaaba si muuseeya kuwa shalay jidka yaallo lahaa iyagoo bastoolada la baxayaa la toogtay yaa ku yidhi barxadda ex baarlamaana bastoolad la isugula soo baxaa maluuqay wax ku gaadaanay waayeen war xarfaanta way ka xumaatay ka gudub wargaay wax dili raba xarfaan maaha waxaan maqli jira hadda ka hor xamuud jimcaala taagaanow xabaala kuma quri weyd alla maxaad adduunya soo joogtay war ra'iisul wasaare khayr waxaa la yidhi kenya waaday ba siyaasadaha ku bargo'day waxaana maqlay inuu kala hadlayo ciidamada kenya dhismayaasha soomaalidu ay burburinayaan iyo shirkadan hormuud oo ay taargetka ka dhigteen war ciidanka kenya waa kuwa hormuud burburinaya maa safaari laga burbursho haniga qaniya ka fujisay walaalaha iskaashinta somalilan cid burburin kartaa ma jirtee orta laga hortaganayo waraada somalilan ku waalatay doctor habeeb kow inaad likinjeeyo adiga naftaadu koonfur galbeedaad ku waalatay xal lagugu daaweeyaa war adiguba galmudug baad ku waalatay xaggeen ku geynaa war dadkii waxa uu waali badan kuwa jubbaland ku waash eega waad ka shallaaya hadalka waraa mustafa cagshar iyo axmed shidda ma heshiisii war wabigii ma soo gaarsiiseen war wabay ma ogol aryaa u diidi kara yaa gey kara nada tada barwaaqahayd ku dhacdee